gudoomiyaha banka dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Ibrahim Baghdadi ayaa qaatay kaarka codeynta doorashooyinka Soomaaliland iyadoo gudoomiyuhu ka qaatay xarunta hay'adda shaqaalaha dawladda maalmihii ugu dambeeyay gobolka Maroodijeex iyo qaar kamid ah gobolada dalka waxa komishanka doorashooyinka Soomaaliland uu ka waday qaybinta kaarka codeynta doorashooyinka Soomaaliland gudoomiyaha banka Cali Ibrahim Baghdadi ayaa bulshada reer Soomaaliland ugu baaqay inay qaataan kaarka ay ku codeyn lahaayeen doorashooyinka soo socda waxaan marka hore salaamayaa bulshada Soomaaliland guud ahaan gaar ahaan gobolka Maroodijeex waxaan kula talin lahaa bulshada Soomaaliland inay kaar ka qaataan goobtan aan joogaa waa goobtii hay'adda shaqaalaha oo aan saaka soo kalahay inta qaadatay aad bay u yar tahay saan xogta ku helay boqolkiiba 70 Soomay dooran kaarkii halkan u yaalay muddadiina waxa ka hadhay bariyo qura haddii aan la sii kordhin muddada marka waxaan kula talin lahaa amaan ku bogaadinayaa dadku inay kaarkoodii ay soo doontaan oo ay foodka oo ay xaq u leeyihiin si ay u gutaan inuu qof waliba kaarkiisii halkii uu ku qoraa si dhaqso ah u doonto Cabduqaadir Cabdullaahi Nuur telefishinka qaranka Soomaaliland Hargeysa.